السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dad badan ayaa waxay caadaystaan isticmaalaan oo si toos ah u cabaan saliidda la yiraahdo saliid saytuunka ama olive oil ka gaar ahaan noocooda la yiraahdo fishinka ee high quality ga ama good quality ga ee quality goodu fiican yahay. meelo fara badan ayaa waxa lagu qoraa in saliiddaas oo la cabaa dib weyn aanay ka dhalan karin, laakiin markay dhakhaatiirtu ay sarfiilansi ku sameeyeen ee ay si qoto dheer u dabagaleen saliiddan la yiraahdo saliid saytuunka in sideeda loo cabo waxa ka dhalan kara khatar aad u waaweyn oo caafimaadka dhibaatada ka dhalan karta oo shan lagu soo ururiyay ayaynu insha Allah muuqaalkan ku soo qaadan doonaa. arrinta koowaad waa digestive issues, dhibaatooyin dhinaca dheefshiidka ah inay ka yimaadaan. dhibaatooyin ama problem dhinaca dheefshiidka inay ku samayso ayaa arrinta koowaad ee la qoraya. saliiddan inaad iska cabdo oo aad tiraahdo jirkayga ayaa u baahan ama markaa faa'iidooyin caafimaad bay leedahay inaad tiraahdo waxa khatar way ku dhici kartaa habdhiska dheefshiidka dhibaato ku timaada. habdhiska dheefshiidka dhibaatada ku iman kartaa waxa weeyaan bay tilmaamayaan dhakhaatiirtu inay dhacdo wax la yiraahdo digestive disorder, inay cuntadu ka shiidmi weydo oo dibiradu ay ka tagi weydo oo dheefshiidkii si fiican cuntadii uu kala saari waayo wixii waste productiga ahaa ee khashinka ahaa ee jidhka dabadda looga soo saarayay iyo wixii nutrientska ahaa ee nutritionka jidhku uu isticmaalaya nafaqada jidhka siinaysay in la kala saari kari waayo oo dheefshiidkii uu khalkhalo oo cuntadii uu ku wareero oo dabeetana cuntadii ay isku kaa taagto. arrintaa waxaa ka dhalata markaas laba arrimood oo waaweyn, wax la yiraahdo stomach cramping iyo diarrhea ayaa ka dhalata. in calooshii lagu majiro oo markaa calooshii wax lagu qabanayo ay noqoto marka dheefshiidkii uu khalkhalo, iyo inaad shubanto oo dabada markaas ay cuntadiiba ku dhaafto oo shuban saayid uu dhaco oo cuntadii nafaqada lagala hadhi kari waayo sida ay kugu dhaafto shuban jirkaagii xanuun uu kugu yimaado, ama inay markaas ay soo kabacdo cuntadii oo wax la yiraahdo bloating baa qofka ku dhacaya, calooshii baa markaa faaxaysa oo bararaysa oo uu dibiraya, qofku dabeetana uu iska hungaacinaya inuu iska hungaaciyo uu dabada keeno cuntadii iska soo saaro. dhibaatooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay ee ay keento in saliidda la iska cabo. sidoo kale dhakhaatiirtu waxay soo qaadanayaan inay khatar ay ku abuuri karto in systemka jidhka gaar ahaan circulationka inay dhibaato gaadhsiin karto. circulationku yacni waa qulqulka dhiiggeena inay dhibaato u geysan karto. safe maaha bay tilmaamayaan caafimaadku bahda khubarada caafimaadka. waxa kale oo dhibaato ay u geysan kartaa inuu khalkhal ku yimaado garaaca wadnaha. marka khalkhalka garaaca wadnaha ay ku keenayso cuntadii qofka calooshiisa ku jirtay noocay tahay ayaa iyaduna khatarta sii badin karta ama khatarta yareyn karta. tusaale ahaan haddii qofku uu cunay cuntooyinka calories-ku ay ku badan yihiin ama cuntooyinka carbohydrate-ka, kuwa haddii uu aad u qaatay inay dhibaatadu sii badan karto. sidoo kale qofku haddii uu markaas uu hilib cunay ama borotiin fara badan jidhkiisa uu ku jiro inay dhibaatadu sii badan karto. haddii uu gaajoonayo inay dhibaato sii badan karto. taasna markaas safe uma aha. dhibaatada markaa ugu weyn ee ay ku keeni kartaa qofka waxa weeyaan uurku jirta inay khalkhal iyo dhibaato weyn ay ku keento. marka saliiddan oo la iska cabo oo qofku sida cabitaanka ama sida biyaha uu iskaga cabaan dhibaatooyinkaas ayay leedahay. waxa kale oo dhici kara dhibaato aan laga taxadari karin ama wax la yiraahdo in markaas dhibaato aan la cabiri karin oo aan laga taxadari karin oo aan predictable ah oo aan la saadaalin karin ayaa iman karta.
markaas saliidani sayf uma aha qofku inuu iska cabo oo uu markaas sida cabitaanka caadiga ah iska cabo haddii aad ka mid tahay dadka joogteeya saliidan ee sida caadiga ah iskaga cabaan fadlan jooji khataraha caafimaad ayaa ka iman karaan sidoo kale waxa la haylay gareey dhibaatooyin kalena inay ka iman karaan oo ilaa hadda on processed ah oo aan iyagana si toos ah default aan looga dhigin ama aan soo saarin laakiin baaristooda ay socoto oo iyadoo khatarteeda leh si kastaba ha noqoto saliidani safe ma aha ama qofku ma cabi karo oo ma aha mid ammaan qofka jirkiisa ku ammaanay inuu iska cabo intaas ayaan ku soo ururinayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.